su-aashu أحمد عبد إبراهيم كوميشن كقرن كقال قاد بان أقوم هالنقيا يهون كيبل برنامج كنا أدبان أي ويف ماي هاند دل يردن الله يرضى كل عدة كل ود الدودي سنة أدي أدبان أقوم هالنقيا سيدي ونكسني وقصوا قريب قلين كل سؤال شيء دي واحد ما هالنق كوميشن ككتب مرودي إذا قال جا كوميشنر كالتون وهل كان عاوف في السؤال بان ويديني Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. قف قالي يا أوقي ملوي. سؤال شيء واحد هاي مروة كلتون. حقين كعضينيا. هذه أدو حقين كعضينيا مروة كلتون. هذه أدو ما تنتهي. السلام عليكم ورحمة. وحفلي وشو سؤال مركز ضمان دي كوب لعبي دونا. هذا ما ضاش التسؤال دوان دي كوب لعبي. يجينا واحد تعلنا إنه نوصل كوبان كوميشنكو سأنو تدك هرو وقول على نفسه على هاي يجينا. أنا سؤال شو يقول رئيسي مدحوينها مستقبلك. مدحوينه وحن كل شيء جيا. dadku waa run waxa la yiraahdo override imika override baa la yiraahdaa waa dadka indhuhu ay si uunu qaban waayaan ama qofku ha indhala aado ama si waxyaabo ilaaha ka wanaato ama labadaba ha ahaato ama siyaabo kale toba indhaha wax kale ka jireen si kala baa loo isticmaalayo berdhawto maraan ceergaaba joogay ayaa qoriyo noo shaqeynayay ayaan ku iri war ninkan muxuu la buuqayaayo la qeynanaya markaas la gabadhu waxay igu tiri waa override markaasaan override kibaan yaa override muxuu jeedaa override kuma aha ki kaarkiisi isaga ii tilmaamaysa inuu yahay yani qof indhaha wax ka qaba yani magacaas baa yani u bixiyeen baan ku leeyahay marka waxa weeye dadkaasi markii horena waxa loo sameynayay wax la yiraahdo override oo ah in qofku diiwaan gelinta goobta jooga uu la soo hadlo xarunta oo marka loo ogolaado markiiba maalintiiba 9 qof oo indhaha wax ka qaba saasa loo sameynay goobaha qaar kood dhibaato ahayd oo meelihii aan online ka ahayn xoogaa laakiin inta badan dadka waa loo sameynay dad baa jirta iyadoo override-kii loo sameeyay haddana ama loo ogolaaday oo ruqsadii la siiyay ayaan qaban ayaa jiray marka dadkaasi waxa loo sameeyay cabashooyin baa loo qoray qaar kood kaadhadhkii dib baa loo siiyay qaar kale oo aan la siin baa jira oo imika xitaa mar kale to cabashooyinkii soo qortay kuwaana cabashooyinka imta hadhay oo imika la doonayo in aanu ka gaarsiino inta bishantana oo aanu goob kasta geyno una degmo kastana geyno weeyaan maha goob kasta degmo kasta geyno oo komishanka goobta degmada noo jooga ay qaybiyaan ayaa markaasi qaybin doona oo siin doona waxa jira iyagana waraaqo kaleeto oo iyagana fasaxa oo loo siiyay sida kaarka u shaqeynaya oo iyagana loo ogolaaday oo aan u qoray komishanka u qoriyaan iyagana ay markaasi ku galayaan goobta su'aasha kaleeto ay weydiiyay oo ahayd kaadh baa la iibsaday komishanku warka ma hayo kaadh la iibsaday meel lagu kala iibsanayo lagu kala dilaalayana maanaan arag meel gacanta hoosta la isaga halkeenaya maanaan arag de ma garanayo taasi aad u xaqiijin karto waa sidii su'aashii ninkii mahado awke uu ka jawaabay waa la yiri weeyaan baan u maleeyaa tan ku dheedo haddii la iibsado maxaa sharciya hadday dhacdo maxaa sharcidii ka yahay sharcigu waxa weeye qofku inuu kaarkiisa la yimaado maalinta codbixinta la codeynayo kaarkiisa kaar aan ahayn uusan ku codeynayn ee kaarkiisa uu la imanayo ku codeynayo sidaa weeyaan waanu maqlay warar kale oo sheegaya dad loo ururiyay meelaha qaar kood oo la yiri dad baa haya oo qaaday laakiin kaar kuwa qudhooda iyo waxyaabo kale oo aanu aragnay komishanku arkay in ayeen si aan saxan ku baxeen ba talaabooyin buu ka qaaday kaararka waxaanu awood u leeyahay qalabka aanu haysanaa kaararka aanu doono aanu cancel garayn karto oo aan gebigoodaba lagu codayn karin marka goobta la yimaado waxaanu kaloo samayn karaa kaarar kale oo qofkaasi uu qofkii wax ku noqdo ama si kale oo ay wax u dhaafeen uu ku codayn karo ayaanu samaynaynaa wixii xalaala wixii xaaraanina halkaas ay ku dhamaanayaan laakiin Saciid adigoo raaliya commissioner Saciid guddiga doorashooyinku marka laga hadlayo ololihii haddii xisbiyadu hoggaansami laayeen
xogaha annagu aanu hayno eanu xafiis ahaan hayno eanu home cable hayno waxaa jira xisbiyo isku diyaariyey oo kaadhadhkiina iibsadaan isku diyaariyo badheedha oo dadweynihiinay ka urursadaan badheedha oo dhallinyaradii ka urursadaan badheedha oo xoogahoogu ay yaalaan sidaad aduba u sheegtay inaad xoogaha aad maqasheen maxaa tallaabo ka qaadi karaysaan haddiiba ololahoodii aad xakamayn kari laadiin inay qof kaadhkuula yimid oo iibsadayna tallaabo laga qaadi karay waaba kuu sheegay tallaabooyinkaanu qaadayno qaarku waanu kuu sheegnay si aanu u kansal garayn karro kaadharhkii laakiin waxa weeyaan kaadharhku dadka qofku waxaa baa la yidhi qof walba kaadhkaaga qaado qofku kaadhka iska qaadan maayo waa la soo jeeg garaynayaa kaadhkii magaciisaa la weydiinayaa liisku ku jiraa la weydiinayaa telefoonkiisaa la weydiinayaa suulkaa laga saarayaa markaasi ayaa qofka marka la soo xaqiijiyo inuu qofkii yahay waxaanu qabannay dad ciidda iyo carradaa ka badan oo kaadh warqad ayan lahayn sita ama magac ayan lahayn sheeganaya waanu qabannay siyaabaan aanu ku qabannaa magaca hooyadiisaanu weydiinay waxyaabo kaletaanu weydiinay markaasay qaar iska khalkhalaan waaba garan kartaaba goobta markay yimaadaan qaar baa iska gariiraya ha aniga magaca hebel baa la yidhahdaa halkaasaad ba kasii garan karaysaa qofku inaan wax xalaalo uu doonaya ugusan ayan ahayn laakiin annagu xisbiyo urursaday ma ogin dad la yidhi dad baa u ururiyay waanu maqalnay oo la leeyahay hadhowtaa dad ama meel fog jira ama waxyaabo kaleto ku dhaceen oo dad la yidhi dad baa ururiyay laakiin annagu waxaanu caddayn karro oo aanu xaqiijin karto kuwaasina ma aha way su'aalaha way waqti su'aala jawaabahan waynu kooban si aynu fursad u siino dhallinyaradana su-aasha mukhtaar bay soo gelaysaa horta su-aashan maxayde uu siciidna ka jawaabayay mukhtaaroo kaadhkaagii miyaad haysataa goobtee kuugu qoran waxa weeyaan kaadh kasta waxa ku qoran goob number iyo goob magac namekii iyo numberkii baa ku qoran qof aan goobtaa ku qornayn kaadh hadduu la tago waa xadhig lalama tegi karo haddii la urursaday iyo haddii 10 aad haysato markaad soo gasho meesha waxa ku yaala hadday 10 qof goobtaa iska diiwaan geliyeen 10kii qof magacyadoodii oo keliya ku yaala magac kale ma iman karo kaadh la urursaday ma iman karo isla markaa goobtaa waa taqaanaa adigu aad iska diiwaan gelaysay magacaagina halkaas u yaala 11 qof ma noqon karto 10 wuu ka yaraan karaa laakiin 11 nooma qorna 10 baa halkaa ku qoran 10kaasun baa yaala sharciyan wixii ka duwan ee lala yimaado waa sharci darro waana ganaax iyo xadhig ayaa la isugu daraya kolay su'aalaha qaar baan ka jawaabi doonaa taa haddii aan weliba sii xoojiyo waxa weeyaan haddiiba ay dhacdo qofku inuu kaadh si kale u helay oo is yidhaahdo goobtan ka codee oo xitaa goobta kaadhka uu ku qorayay uu tago waxaa la isku eegayaa wejigiisa iyo magaca meesha ku qoran una suurtogeli mayso inuu ka codeeyo marka taasaan kusii xoojinaya liiska mukhtaar haa liiska la dhigayaa waa isku mid u su'aalahaas horena waan u sheegay liiska ayaa la dhigayaa magacaagaa la dhigayaa magacaaga laga eegayaa kaadhkaaga iyo ID numberkaaga la isku eegayaa kabacdina saad ku codeynaysa waay su'aasha xaajigan raacinaya halkaas jawaabtaasi waxa weeyaan horta aad iyo aad bay muhiim u tahay waxa weeye qofku inuu ogaado xag u ka codeynaya waxaa jirtay ayaamihii diiwaangelinta 14 maalmood ee dambe waxaa jiri jirtay inuu qofku dooranayo meel kale inuu ka codeeyo halkuu iska diiwaan geliyo maahe adigoo imika jooga koodbuur baad oranaysaa waxaan ka codeynayaa xaafadda Axmed Dhagax taas aad bay muhiim u tahay ama goob kale aad dooranaysaa si markaa dadku aanay ugu mashquulin waxa laga yaabaa qofku inuu tago maalinta goobtii uu ka qaatay kaadhka oo is yiraahdo goobtii aad kaadhka ka qaadatay baad ka codeynaysaa laakiin ay ka duwan tahay waxaad ka codeynaysaa goobta kuugu qoran kaadhkaaga xaggiisa dambe maaha goobtii aad iska diiwaan gelisay laakiin waxaad tegaysaa goobta kuugu qoran kaadhka xaggiisa dambe qof waliba ha akhriyo goobta ugu qoran kaadhkiisa xaggiisa dambe halkaasaad ka codeyn doontaa insha Allah malaha maaha inaan ka jawaabo su'aashu meelun bay ku socotay laakiin waxaan ku darayaa waxaa laga yaabaa goobaha laga codeynaya inay ka badnaadaan goobihii diiwaangelinta marka waxaa laga yaabaa goobtii codbixinta in la kala jejebiyey
oo dhowr qaybood 3 qaybood ama 2 qaybood laga dhigay marka taa ku dheeda waa inaad maanka ku haysaan aad soran goobta ay tegin laakiin goobta kugu qoran oo laga yaabo inay ka dheerayn halkii aad iska diiwaan gelisay